ghazwatu khaybar markii dagaalka lagu qaaday lagu duulay gabadhii ugu quruxda badnayd markaa ayay nebiga u dooreen asxaabtu u doorbideen safiyata bintu xuyay radiyallahu canha ummul mu'miniin bay yidhahdeen nebi allow tan adigaan kugu deeqnay qaada bay ku yidhahdeen way qurux badan tahay markaa buu nebigu yidhi wallahi waad ii garateen buu yidhi tii ugu qurux badnayd dadka waa hagaag caaishu nebigu u yeedhay xafsa u yidhi caaisha iyo xafsa kaalaya gabadhana laysiiyey dadkii la soo qafaashay baa layga soo dhex doortee caroos baan he ii soo diyaariyey buu yidhi ordo ii diyaar garaya reerihiisa nebigu ma dhaqaalo ku wada mise akhlaaq badii sheega yaa ma dhici karta waa waxaad innaga zamankeenna waa mustaxiil inuu ninku labadiisa dumar uu qabay uu ku yidhaahdo naa gabadh yar baa laysiyoon guursadee bal ii soo diyaariya way adag tahay soo maaha waxau nebi maxamed reerihiisa ku maamulaya waa akhlaaq weeyaan waa khuluq lacag ummadda laguma maamuli karo reere lacag laguma dhiqi karo reeraha waxaa lagu dhaqaa waa dhaqanka wanaagsan weeyaan lidaalika nebi maxamed sal alla alay slam mathalu laclaa buu dhinac walba ahaa way qaadeen habeenkii bay u diyaariyeen salaaddii cishaay markay gaadhaa saxaabadu nebiga soo gelbiyeen markii aqalkii loo dhowaaday buu nebigu saxaabadii ku yidhi war dee reerkaygii baan u tegiyey iga hadha buu ku yidhi markaas innakana maasha allah dee aroosyada zamankeennan ilaahay haynoo dembi dhaafa bas bal arooska nebi maxamed dhibyaridiisa eega caroosadiina labadana u diyaarinaysa xafsa iyo caaisha isagiina salaaddii cishaay markuu saxaabada soo tujiyey hareeraha ka soo mareen aqalka markuu u soo dhowaadayna iyakiibuu la kaftamo wuxuu ku yidhi war dee caroos baanayn reerkaygii baan u tegiyey dee maxaad iga daba qabanaysaa niga hadha buu yidhi deedna markaasay qoslayna xishoodaynay ka hadheen caaisha iyo xafsa ka soo baxay marka aqalkii markii nebiga maqlay inuu soo socdo markaasuu yidhi haye bal warrama maxaad aragteen caaishaa tidhi dee maxaan aragnay yahuudiyad baan aragnay orooda u teg bay ku yidhahdeen way qurux badnayd baa la yidhi way ka wada qurux badnayd marka weliba xafsaa hadalla adag ku sii hadashay markaa buu nebigu ka daba hadlo yidhi xafsa itaqi allaah ilaahay ka yaab ma cadhoon ma dagaalamin ma qaylyin bal siduu nebigu ula dhaqmay reerihiisa eeg wuxuu yidhi xafsa caaisha gabadha waa muslimad way islaamtay ilaahay ka baqa markaasay leeyihin waa yahuudiyadeeda u teg bay ku yidhahdeen markaa buu nebigu u soo galay calayhi salaatu wasalaam maalmihii carooska ahaa maalintiina saxaabadu nebigu la joogaa dumarkaa markaa u yimaado markaa gabadha way u weheliyaan oo way u sheekeeyaan maalin maalmaha ka mida buu nebigu u soo galay safiya iyadoo ooyeysa markaa buu nebigu ku yidhi safiya maxaad la ooyeysaa ii sheeg waxay tidhi yaa rasuul allah dumarkaaga qaarkood dhib bay igu hayaan aniga waa teeyete caaisha iyo xafsa oo maxay leeyihiin dee waxay igu yidhahdeen mar walba yahuudiyad baa tahay dee markaa buu nebigu ku yidhi ayakuna maxay leeyihiin de annaguna gabdha carab baan nahay carabiyaad baan nahay annagu adiguna yahuudiyad baa tahay markaa buu nebigu ku yidhi dee adaa ka nasab fiicane haddii xagga nasabka la eege adiga aabbaha waa nebi nebi haaruun bay ku abtirsanaysay baa la yidhi aabbahaa waa nebi adeerkaa waa nebi ciise nebi muuse zawjkaagu waa nebi maxamed adaa ka laandheeraysan buu ka yidhi ee markay kuu yimaadaan iska celi saa ugu jawaab maalin dambuu nebigu yimid dee safiya bintu xuyay oo aad u faraxsan bal warran waxay tidhi maanta dumarkaagii taan ku dhigay waa la yaabay tidhi oo maxaad ku tidhi dee kelmadday igu odhan jireen bay iila yimaadeen yahuudiyad markaasaan ku idhi naa yahuudiyaddan baad igu haysaane aniga aabbahay waa nebi haaruun calayhi salaam baan ku abtirsadaa adeerkayna waa nebiyullaahi muusa calayhi salaam waa kaliimullah odayguna waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam bal middiinna intaasoo nebi kulansatay halkaas soo dhigaan ku idhay tidhi sheegaan ku idhay tidhi markaasay afka qabsadeenoo way iga yaaceen bay tidhi maanta halkaa un dee ka wad buu nebigu ku yidhi saa dumarka iskaga celi yani xayaat alcishra balek nebigu siduu dumarkiisa u kala badbaadinaya eeg waan run waxuu nebigu ku hadlaayo qofka nasabkiisu wuxuu qiimo ku yeelanayaa ina akramakum cinda allaahi atqaakum haddii iyaka ay gabdho carbeed ay yihiin oo xafsana cumar u dhalay caaishana waa abubakar u dhalay adigana nebi haaruun baad ku abtirsataa adeerkaana waa nebi muuse waa kaliimullah
haddii nebi maxamed uu ni wada iyaka uu qabana dee adiguna nebi maxamed waa ku qabaa buu ka yidhi nebigu markaa nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam isagaa inoo qudwa markaa nebigeenna haddaan guul doonayno liibaan doonayno cizi doonayno sharaf doonayno waa inaan nebigeenna raacnaa hadba intay ummaddu dhaqankii nebi maxamed aan ka sii fogaanno waxaad ogaataa ilaahayna waa inaga fogaanayaayo ogow ghaswatu uxud ayaa darsi baa duruus baa ayaa ku duuban duruus ibn qayim aljawsi raximahullah fii zaad almacaad buu kaga warramay inta masaa'il uu ka soo saaray sheekhaasi fii ghaswati uxud hadday axkaam tahay hadday cibar ay tahay hadday taariikh tahay hadday siiro tahay hadday hadyi tahay ma malayn karaysid jamaacuu nebigu soo qaaday jamaaco jabalurumah buurta la yidhaha buu nebigu jamaacaddaa uu dhigay waxa uu nebigu kula dardaarmuu ku yidhi haddii aad guulaysannood aragtaan iyo haddii kaleba ininku halkaa ii jooga buu rasuulku ku yidhi judhii u horraysaba muslimiintu way guulaysteen waa la jebiyey gaalladii khaniimadii baa la guranayaa jamaacaddii nebigu buurta uu dhigay ee xagga dhabarjebinta uu nebigu u dhigay inay ka ilaaliyaan way kala jabeen markiiba qolo waxay yidhaahdeen way guulaysteen muslimiintiiyo waa kuwa khaniimadii guranayee ina dhaadhiciya amiirkii jamaacaddu wuxuu yidhi may war ha degdegine nebiga ha khilaafine amar nebi baan meesha ku joognaaye halkaa jooga may dagaalkii dhammaa guushii muslimiinta ee raacdeenna dhaadhiciya may way kala jabeen jamaaca way dhaadhacday oo khaniimadii bay ka qayb galeen inay muslimiinta la gurtaan laakiin jamaaca buurtii bay ku hadhay jeyshkii maaragtaane fardaha khaalid ibnulwaliid oo maalintaa aanan muslim aanan ahayn ciidankii uu watay ee fardahee fardoolayda ayaa dhabarjebin intay xagga dambe ku soo sameeyeen jamaacaddii buurta ku hadhay amarka nebi maxamed ku sugnaatay ilaahay waxa uu ku deeqay inay noqdaan wada shuhado maxay noqdeen shahaadaa ilaahay wada siiyey jamaacaddii nebiga amarkiisa jebisayna dhaawacii iyo ka keliya ma soo gaadhine bal muslimiintii oo dhan maalintaa dhaawaca waa gaadhay 70 saxaabada nebi maxamed ka mid ah ku shahiiday oo nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam baa maalintaa dhaawac la gaadhsiiyey sababtuna waa maxay waa jamaacaddaa buurta dul joogta iskhilaaftay weeyaan adduunye jacayl baa ilaahay ku sheegay meesha inuu yimiday cisyaan baa dhacay oo nebi maxamed amarkiisii haddii la jebiyey waxaad ogaataan gargaarkii waa rafacmaya lidaalika ibnu cabbaas radia allaahu canhuma ayaa odhan jiray laba nabadgelyaa ilaahay ummadda siiyey labadaa nabadgelya mid ilaahay waa inaga qaatay waa nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam midna waa istikfaartii oo istikfaartii waa ummadda loo reebay wamaa kaana allaahu liyucadibahum wa anta fiihim wamaa kaana allaahu mucadibahum wahum yastakfiruuna baa ilaahay yidhi intaad adigu ummaddaada dhex joogtana cadaabi mayna baa ilaahay yidhi inta ummaddaadu dembidhaaf ilaahay ay weyddiisanayaan ee ilaahay ay u soo noqonayaanna cadaabi mayna baa ilaahay yidhi marka amar nebi maxamed ka soo fulay oo jamaacadda qayb ka mida ay jebiyeen ayaa muslimiinta maalintaa jab ku soo gaadhay oo 70 nin oo saxaabadu ku shahiiday nebi maxamedna maalintaa la dhaawaco dhiiggiisa dhulka uu ku daatay xamso nebiga adeerkiiyana uu ku shahiiday ma ahayn dagaalku wax sahlan dagaalka uxud waxaa qisaddaa inoogu filan oon u soo qaatay haddii ummaddu ay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadyigiisa dhaqankiisa sunnadiisa akhlaaqdiisa aan ka fogaanno waxaad ogaataan ilaahay baan ka fogaannay ogow wa atiicu allaha wa rasuulahu walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wasbiruu ina allaha maca asaabiriin bal inta axkaami aayaddaa ku jirta u fiirsada wa atiicu allaha wa rasuulahu ilaahay adeeca baa la yidhi oo rasuulkiisa adeeca walaa tanaasacuu ininka dhexdiinna baa ilaahay yidhi ha marmina xaqa laguma marmo xaqu waa cad yahay waa la raacaa xaqa haddaad tanaasac mulkiga haddaad isku qabsataan iyo maamulka haddaad talada ummadda isku qabsataan kanaa sax iyo kanaa qalada haddaad isku qabsataan oo muslimiinta dhexdooda uu ka dhaco maram ku salaysan baatil oo xaq aanan ahayn hadduu dhexdooda uu ka dhaco fatafshaluu baa ilaahay yidhi waad fashilmaysaan fashal hadduu yimaadana maxaa ka dhacaya watadhaba riixukum
quwaddiinni iyo midnimadiinni baa tegaysa baa ilaahay yidhi waa lagu soo celiyo la yidhi haddana wa atiicu allaha wa rasuulahu ilaahay rasuulkiisa adeeca baa lagu yidhi in kuntum mu'miniin haddii aad tihiin kuwa iimaan le baa ilaahay yidhi markaa nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam noloshaa uu ummadda ula yimiday baa la rabaa inaan ku dayanno xayaata alislaam haddaad nolosha islaamka aad raaci weydid waxaad raacaysaa xayaata xayawaaniya xayaatada la yidhaahdo marka shayga ugu muhiimsan ee nebigeenna kaga dayanaynaa waa maxay bay culimmadu yidhahdeen waa qaabkii nebigeennu ummadda uu risaaladda u gaadhsiinayey tabliiq arisaala akbar mucjiza waa taas sidee nebigu ummadda u tarbiyadeeyey sidee buu nebigu ummadda risaaladda u gaadhsiiyey kayfiyadday nebi maxamed oo ummadda risaaladda ku gaadhsiiyey kayfiyaddee bay ahayd wakhtigaa inagu dheeraan laakiin nebigeenna moxamed calayh isalaatu wasalaam inaan ku dayanno oo noloshiisa aan baranno oon ubadkeenna barno oon ku dhaqanno oo diintaa ilaahayna siiye nolosheenna ay ka muuqato dadaal baa loo baahan yahay markaas dadaalkaasi culummada keliya maaha mas-uuliyaddu waxay saaran tahay nebigu diinta in ummadda la gaadhsiiyo diin la baro xilka culummada keliya nebigu ma saarin muslim kasta xilka nebigu uu ku wareejiyo uu saaray balliquu cannii walow aaya balliquu amar cannii waa tashriif iyo takriim walow aaya waa takhfiif laguu khafiifiyey laguu fudaydiyey rasaaladdii dee insha allah dhahada inaan dadaalka diinta u wada kacno oo hadyigii nebigeenna aan raacno ku dayanno ma wada niyooteen insha allah insha allah dhahada insha allah dhahada si fiican u taaga gacanta allah ina aqbalo dembigeenna allah ha dhaaf saad noo soo dhoweyseen allah nii soo dhoweeyo masaajidku waa masaajidkeennii xaafaddu waa xaafadeennii magaaladu waa wada magaaladeennii aniguna wadaad musaafir oo qariiba mahiye waa iska ubaan iska ahay ma og tahay dhulku waa dhulkeennii dadku waa dadkeennii dalku waa dalkeennii amnigana allah inoo adkeeyo wixii diinteenna iyo dalkeenna iyo dadkeenna u danana madaxdeenna allah garansiiyo innakana insha allah dadaalka diinta han guddoonno oo nimankiina ganacsatadaee suuqa jooga dee tijaaraddaada haddaad wakhti ku bixin iyadu ma iswadi dukaan baan furtay wakhtina ku bixin maayo ha ii xidhnaado intay badeecaddii oo dhan ay dhex taallo ma iswadaya isagu diintan tijaarad weeyaan ilaahayna siiyo badeecad ilaahay wuxuuna siiyey caalamkao dhan u baahan yahay marka badeecaddaas inaan wakhti ku bixinaan u baahannahay markaas habeenka jimcahana markaska ka soo qayb gala insha allahna sheekha inoo khatimi doona insha allah allah ina barakeeyo jazaaka allahu khayran